waxaan joogaa xarada loo aqaano dhagaxley bannaankeeda meeshan waxaan u imaanay aniga oo la socdo ninka u weyn United Nation qaybta maartay gargaarta ee loo aqaano UNHCR ninka u weyn adduunka oo loo aqaano High Commissioner-ga ayaan la imaaday waxaan halkan aan u imaanay inaan bal ka soo wardoono dadka hadda soo galahayo hadda xagga Soomaaliya laga soo galahayo oo soo qaxay oo ka soo qaxay xaggaas ayagoo ka soo qaxay ama abaara qabsaday ama culasho kale oo qabsadeen iyo amni darro iyo maartay waxyaabo kale marka waxaan halkan ku aragnay qoysas baa la kulanay waa kuwaas daba taagan waa arkaysiin gaashana taagan weeyaan dad badan baa soo galay ilaa iyo 10,000 qadar baa la sheegayaa marka anaga hadda doorkeena haddaan nahay county-gi dadkan walaalaha ay imaadeen horta mas'uuliyiinta waa la leeyahay hadda culayska hor anagu nagu dhacaya marka anaga hadda waajibkana saaran dadkan imaaday waa walaalaheen weeyaan waa dadkeena waa dad masaakiin oo rayid ah oo soo qaxay bal wixii aan u qaban karno baan ka hadlaynay aniga iyo maanta ninka UN-ka u weyn anagoo doonayna inaan la kaashano dawladda dhexe national government-ga in culaysyaha jira la qaado oo dadkan inta la kari karo maartay wixii sax ku soo galay oo qaxootinimo sax ku soo galay maartay in la soo dhaweeyo oo muxuu ahaa loo fududeeyo hawsha loo fududeeyo marka insha Allah hawlahaas isku soo qaadnay qoysaska waa aragnay waa la sheekaysanay ilaa idinkii waxaan rajaynaynaa sida ugu dhowdahay in aan loo fududeeyo ayaan rajaynaynaa biidhnillaahi tacaala